وهذا وشنيله أو برت إنترنت كده جيستان وعاون نقوم مرتي حاج عمر أو أفيانك قرب جوكت نوت أمريكا حاج عمر كسر دو وأندوي السلام عليكم من هذا الواقع أحسنت حاج عمر واحد وان laga soo sii daayay xabsiga magaalada Boorama odayaal dhowr ah oo ku xidhnaa halkaas muddo dheer dadka gobolka Salal ku nool ah isweydiinayeen sababaha loo haystay bal arintaasi faahfaahin naga sii odayadaasi waa oday faamigayga waa adeeraday magaca Ciise weyne ayaa lagu xirxiday waa afduub iyo xaq darro ayaa halka laga sameeyay aad iyo aad baan horta uga xunnahay wixii halkaa ku dhacay laakiin sharaf iyo maaragtay darajada un bay kala kulmeen intaana mahad ilaah baa le ciisanimada xidhnaayeen waana ku mahadsanyihiin laakiin qadiyadii arrinta ay ka kacday beesha Ciise kuwa gudaha iyo kuwa dibadda intuba halkii un bay mowqifkii Ciise yaalaa iskama bedelin inuu gobolkaasi gacanta loo soo geliyo beesha Ciise oo gobolka Salal maamulkiisa gaar loo soo gooyo taasi waa wax halkii u go'an magaalada Saylac iyo Luqayana ina maamulka maayarnimada gacanta Ciise laga geliyo taas Ciise mowqifkiisa waxba iskama bedelin hadii boqolaal la xiriir hadii hal la xidhaba وهجاج waxa annaka nagu maqaalaa in odaydaasi lagu sababsaday ama micna looga dhigtay sagaal xildhibaan oo iscasilay in lagu xiray oo la yiri ma aragtay sagaalkaas ilaa ay ka soo noqdaan mowqifkooda in la sii dayneenin arintaas inagu maxaad kala socotaan ka qurbajahan wallahi war badan oo istaafnaafan qof kasta wuxuu doonay iska sheega dawladda Soomaaliland waxa weeyaan iyaga umba garanaya waxay sameeyeen laakiin iyaga qudhoodu waxba iyagu kala aan nidaam lahayn oo nidaam darro u socda ayaan aragnay oo kala reerkaas maroon bay odaydii baan leexidnay kala anaga sharci ku xidhanay kala xildhibaanna soo celinay wax xildhibaan la soo celinayna ma jiro waxay samaroon xidhnayna ma jirto samaroon Ciise waxay ayaan dad walaalo walbad wax cunay meel kasta ku wada nool oo abti iyo gacal wada marka xumaan lagu wareejinay umba diyaar oo aqli yari raacday laakiin reality islaama odayadu markii Boorama laga soo sii daayay xabsiga waxay ujeedadu ahayd inay yimaadaan magaalada Xariirad oo shaqadii ay u taalay qabtaan sanagu maqaala waxay tageen magaalada Tirdhabe oo ay dul ka mareen oo ay mareen dhul dheer oo u dhaxeeya ilaa Jigjiga ilaa Tirdhabe laga tagayo arintaasi bal iyadana waxa nooga faahfaahay ma waxay la saabsadeen in caamiliga mise soo gaar u tageen ugaas kala soo tashanayaan arrintaasi waxa weeyaan inay reerkoodii tagaan way fiicnay laakiin odayadani waa shaqaynayeen intay meesha ku jireen anagu waxaan u bixinay Guantanamo Bay jeel oo macna lahayn oo qof wax loo xiray iyo maxkamad midna jirin tii Mareykanku kubad Guantanamo Bay ku sameeyay ayaa kala u bixinay Guantanamo Bay Boorama waxba faa'iido lagama gaarin odayadana sharaf iyo magac weyn bay ka sii qaadeen beesha Ciise maanta ayada ayaa guusha iskale dhulkeegana qofka qaadi kara ma jiro su'aasheedu weydiistaan soo noqdo odayadu waxay la soo tashanayaan tulkood hadii la yiraahdo tulkood marka ay kala meel soo dhigaan Saylac ilaa la iman doona oo taladii halkii ay taalay gurtida beesha iyaga ayaa shir isla yeelan doona si degdeg insha Allah lagsto week oo soo socdo حاج عمر maxaa ka jira in dadka qaar aan baba madartay bulshada siyaasadda la isla dhaxmaraysan odayada loo soo jeediyay in xabsiga loo soo sii daayay inay ka tanaasulaan in la soo sii daayay badib ay soo celiyaan sagaalkii xildhibaan dib uga noqday iscasilay golaha deegaanka ee Saylac gobolka Salal arrinta waxba kama jiraan dawladda Soomaaliland baa ka jawaabi dadka ay way iscasileen waxa la isku asileen xaq darrada ka dhacday electionka beenta isku asileen odayada la xilay iyo la furiyaba asilada halkaas ay taalaa waxay u taalaa beesha Ciise oo dhan ayaa arinta ku raacsanay namada tobanka xildhibaan adiga ka Xaaji Cumar ahaan dhawaan waxay saxaafadda inta ay qorayeen in aad tahay afayeenka
on elef maxaa arrinta ka jira maxaad ku beenaynaysaa waxaasi waa propaganda weeyaan wiilka qoray oo Abdiwaab waa wiil saaxiibkaya waan isnaqaanaa waa asaga hadii ay isaga la noqotay arrintaas anigu ma ogi asaga uu baa ka jawaabi kara beesha Ciisaan anu ka dhashay Ciisaan inuu la fahmay lana shaqeyna adduunka dhan iyo dawladaha neebar ku yaqaanin isaga Abdiwaab ana jawaabta bixina jibto hadii la arashan wahagag maxaad imika kula talinaysaa ama soo jeedinaysaa odayadii laga soo sidaayay xabsiga Boorama iyo xildhibaanadii sacfilay dhamaantoodba adigoo maartay fursada horta waxaan ambaliya halka looga jeedinayaa dhamaan xildhibaanada tobanka ee sacfilay sida sharafta weyn ay go'aankii gandhaha Ciise iyo ogaaska u qaateen waxaan ambaliya soo jeedinayaa odayada sagaalka iyo kuna xariga kardarada lagu sameeyay guul iyo sharaf iyo caafimaad baan u barayaa odayaasha labaad oo lugahaya maalinta dhaweyd ka hadlay oo aniguna la hadlay oo jawaab siyo yiri Ciise wada Ciise inaan arama dheere waxaan kale ku hadlaysiin beelaha hadlayo waxba kama jiraan reer lugahaya sharaf bay leeyihiin dhibaatada xariirad iyo lugahayana waa isku mid waa dad qura oday maalin dhaweyd hadlay baa jira oo Samarona odaas wuxuu ku dhawaaqay yiri odaylay lugahaya ma joogin meel kale joogeen adeer waxa waa loo sabaa hadal weyn nin uu ka dhacay wadiid qolof ka dhacay dadkaas waa dadka dhulka u dhashay waa beeshii dhulka iska leh asliga reerka mamaasana waa taqaaniin ayaga magaaloodiyo degdegooda wada garanaysiin oo personal baa u garanaysiin qof nool oo garanaysa in la tafsirana ilaahayna ma ogola bilaadan kuna ma ogola marka dadkaasi waa joogaan dhulka anaga la hadalla waana dad wadaniya dhulkan ayaga iskale magacada la qorqortay boor baan dhisanaynaa sheekadana hadii beesha Ciise ayna la shaqeynay wax niir galaya ma jirto waa salaam magaalada Lughaya hadaan u gudubno dhawaan isab qabsi halkaas ka dhacaa jirta oo jagooyin ahaa amba dhul dhisasa ahaa ardaas hadii aan u soo noqono dhulkaasi dad baa deganaaba la yiri amba jagooyin la qabsaday dad kalena way soo degeen ardaas bal Xaj Umar bal wax ka taataabo waxaasi bilaan qurba joogi sameeyay bay ahayd number ku qorqortay magac waxba kama jiraan dad soo degan ma jiro dadkii dhulka iska deganaa beesha Ciise degan haliyo qof iyo labo reabtilooyo Samarona la degan yahay ama gacal la leeyahay laakiin dhulka Ciise iska degan haday baadiyada haday magaalo tahay laakiin rag baa magac ku qorqortay magacdiina cadda laga keenay waa la arkay nin damac ku jiray waxba ma taro laakiin dhulka dadkii iska ilaahay digay ayaa iska degan marka ragii shaqada yar baa dhacday maalin baa la shaqo qabsaday ina waa laga heshiiyay marka nabad bay meesha iska tahay laakiin dad baa magacyo ugu qoran yihiin oo jagooyin ay u tirsan yihiin oo meesha iska degan marka dadkina waxay leeyihiin dhulkayga waan dhisanaynaa dadkii kalena waxay leeyihiin annaga soo degnay meeshan jagooyinkii ma aqoonsanin arrinta maxaad ka leediin ninku amba dawladda Soomaaliland qabtaan maamulka sheeganaysa dawladda Soomaaliland maamulka ah ayay inay kala saarto ayay u taalaa laakiin Ciise halka degan waxay yiraahdeen siyaad barashaabadiisi waxaan ahayn oo qoonsanahay ma jirto dhulka anaga leh qof nagu dul sheegan karaan ma jirto waa hagaag halkaas